fashalka haysu dhiibi warka murtidiis waxa weeye fashalka haysu dhiibi isku day waad fashilantay Soomaa waad ku guulaysan weyday hays dhiibi mar labaad isku day mar labaad haddana ku guul daraysata ha fashilmi hays dhiibi aniyad shabi isku day mar saddexaad baad haddana ku fashilantay isku day mar afraad laana waxay yiraahdaan an-najaahu la yubna illa ala al-fashal markaad fashilanto markaas guusha la gaadha guushu waxay ku dhisantaa fashalka Soomaali oo ma quraanjadaad ka liidataa nin culimadii kamida waxa la yiri hadda ka hor cilmi kamida culumta diinta ayaa ku adkaaday uu kari waay waa ku rafaaday asagoo isle ilaahay kan ma kari kartida isaga tag ayuu maalmaha kamida isagoo socdo oo darsigii intuu ka soo baxay rafaadsan oo qalbi jabay wuxuu soo maray meel isagoo socdo wuxuu arkay quraanjadu waxay xambaarsan tahay shay iyada ka culusba haddana waxay rabtaa inay darbi fuusho darbiga markay fuusho isku daydo way soo dhacdaa haddana way fuushaa way ku noqotaa way soo dhacdaa isagii wuu taagan yahay wuu fiirsanaya haddana way fuushaa way soo dhacdaa markay malaha 10 goor isku dayday oo mar walba soo dhacayso bay markii 11aad bay korka uga baxday way fuushay markaas wuxuu yiri ma quraanjo oo khalqiga intan la eg baasay ugu noqnoqonaysay bay guusheedii meesha u socdo gaadhay Sooma anigoo aadamo intan la ego ilaahay aqli isiyo i karaameeyayna waan carari miya Allah ma yaa niyadii baa u dhisantay kadibna wuu ku laabtay cilmigii ilaahay baa u furay ilaa markii dambe uu noqday cilmiga dadka loogu culimada waaweyn ee fanniga loogu noqday markii dambe maxaa laga wadaa marka waxaan ka wadnaa fashalka haysbarin ha baran inaad fashalanto ha baran inaad isu dhiibto sax isku dayga inaad midhihiisa hesho ilaahay bay la jirtaa laakiin inaad niyad jabtood burburto ood isdhiibtaay maya mar walba waa inaad isku dayga aad ku noqoto haddana dhanka kale ka soo gal kana ku socon waay dhan kale kaga imo haddana dhinac kale ka soo gal ilaa aad ujeedadaada xaqiijiso